bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 26 bisha May sanadka 2026 waxaan ku hormarayaa hogaamiyaha ugu sarreeya dowladda Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ayaa wuxuu baaqo u diray hogaanka dalalka Islaamka kadib hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka oo ah inay ku biiraan heshiiska Abraham Accord loogu magac daray wuxuu sheegay wadamada Islaamka iyo hogaankooda in looga baahan yahay in iyaga dhexdooda ay sameeyaan iskaashi dhaqaale iyo mid amni si loo dhiso nidaam cusub oo gobolka bariga dhexe ah iyo mid caalami ah kaas oo gabi ahaanba ka baxsan hogaaminta Mareykanka waxa uu leeyahay annaga ayaa hogaan qaban karna isla markaana is hogaamin karna dhanka dhaqaalaha oo wada shaqayn karna laakiin uma baahnin in lagu qasbo Abraham Accord ummadda muslimka iyo shacabka guud ahaan ee dhanka gobolka waxay leeyihiin awood aad u badan iyo dana wadaag ay ku qaabeyn karayaan nidaam cusub oo caalami ah kaas oo mustaqbalka muhiim u ah guud ahaan gobolka iyo dunida sidaas ayaa lagu yiri fariin maanta oo talaado ah warbaahinta la wadaagay Ayatollah Mujtaba Khamenei fariintan waxa lagu soo beegay marka maalinta Carafo oo ah maalinta labaad ee xajka waxaana uu sheegay in ummadaha muslimiinta ay galayaan marxalad taariikhi ah iyo sidoo kale xaqiiqooyin gobolka ah si gabi ahaan gobolka uusan u noqon mid ay bedelaan Mareykanka halkii iyaga ay sameyn lahaayeen isbedel weyn oo guud ahaan dadka muslimiinta ah waqtigu dib uma noqon doono dalalka iyo guud ahaan dhulka gobolka bariga dhexe mar dambe gaashaan uma noqon doono saldhigyada Mareykanka ayuu yiri hogaamiyahan waxa intaas ku daray Mareykanka inuusan mar dambe heli doonin meel amaan ah oo uu ka fuliyo faragelinta iyo dhismaha saldhigyada military ee gobolka kuwaas oo lagu kala haynayo inay sarkaan hogaanka ugu sarreeya dowladaha Islaamka sidaas ayaa lagu yiri qoraalkiisa sida warbaahinta Press TV oo Iran ka soo baxda ay baahisay mustaqbalku waxa iskala buu yiri ummadaha muslimka ilbaxnimo cusub oo islaami ayuuna u yahay fariintiisan wuxuu sidoo kale u diray guud ahaan kooxaha kala duwan ee Iran ay taageertay ee guud ahaan gobolka ku sugan isagoo sheegay tan inay muujinayso sida ay kooxaha muqaawamada u guuleysteen intii lagu guda jiray dagaalka guud ahaan gobolka ka socday isagoo tusaale u soo qaatay min Iran, Lebanon, Falastiin, Iraq, Suuriya, Afrika meelo badan oo kamid ah Yemen ilaa Afghanistan iyo Pakistanba wuxuu sheegay marka xoogagan inay la dagaalameen saameynta Mareykanka caqabadna ay ku noqdeen gumaysiga Israel sidoo hadalka u dhigay qayb kale oo fariintiisana waxa lagu amaanay gulaha ciidamada dowladda Iran ay ka gaareen dagaalkii Mareykanka iyo Israel ay ku soo qaadeen ee wada jirka ahaa 28 February arrimaha xajka iyo Mareykanka iyo Israel oo markale uu leeyahay hageeriha ku dhacdo iyo erayo kale ayaa kamid ah arrimaha uu ka hadlay waxaana uu fariintiisa ku soo gabagabeeyay dowladaha Islaamka ee gobolka in looga baahan yahay in iyaga midnimo ay muujiyaan iyagana ay wada shaqeeyaan maalintii shalay madaxweyne Trump ayaa soo saaray qoraal dheer oo dowlado badan uu kaga dalbanayo inay ku biiraan heshiiska Abraham Accord isagoo sheegay in loo baahan yahay heshiiska inuu noqdo mid dana wadaag ah oo hal dhinac oo kaliya aanay ka faa'iideysan dowladda Pakistan waxay kamid ahayd dowladihii ka jawaabay dalabkii madaxweyne Trump waxaana dowladda Pakistan ay dhahday sidee baan ula heshiin karaynaa dad xitaa aanan hal maalin lagu kalsoonaan karin mowqifkeena waa uu cad yahay arintaasina ma aqbalayno waliba ergaas ayuu adeegsaday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Pakistan Khawaja Mohammad Azif ninkan aad ayuu uga soo horjeedaa Israa'iiliyiinta sidoo kalena wuxuu yiri Pakistan waa dalka kaliya ee baasaboorkiisa xitaa ay ku qoran tahay laguma tagi karayo Israel marnabana ma ogolin mana aqbali doona arintaas ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Pakistan sidoo kale madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa mar kale waxa uu ka dalbaday dalalka Sacuudiga, Qatar, Pakistan, Turkiga iyo sidoo kale Jordan inay ku biiraan heshiiska Abraham Accord heshiiskaas oo lagu caadiyeynayo xiriirka dowladahan ay la yeelanayaan Israel isagoo sheegay taasi bedelkeeda in la gaari doono heshiis gabi ahaan lagu joojinayo dagaalka dowladda Iran laakiin sida warbaahinta ay baahisayba dowlado badan ayaa durbadiiba ka soo jawaabay oo arintaasi gabi ahaanba diiday waan arki doonaa qodobkan waxyaabaha ka soo kordha laagsan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka ay xalay weerar ay ka fuliyeen koonfurta dalka Iran iyagoo sheegay inay bartilmaameedsadeen goobo ku dhow magaalada dekedda leh ee Bandar Abbas oo kamid ah meelaha ugu muhiimsan ee ku teesan marinbiyoodka Hormuz oo dalkaasi Iran ah afayeenka taliska dhexe ciidamada Mareykanka Timothy Hawkins ayaa telefishinka CNN ee dalka Mareykanka wuxuu u sheegay in ciidamada Mareykanka ay fuliyeen weerar uu ku tilmaamay mid isdifaac ah
oo ka dhacay koonfurta dalkaasi Iiraan si ay kaga hortagaan khataro uu sheegay in ay ku soo wajahnayeen ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. Khatartan wuxuu yiri waxay ka imaanayeen ciidamada dowladda Iiraan. Waxa intaas uu ku daray in bartilmaameedka ay ka mid ahaayeen goobo gantaalo laga soo tuuro iyo dowladda Iiraan ee leedahay oo lagu eedeeyay in miinooyin ay dhigayeen marinka Hormuz. waxaan arrintan eedeynta imaanaysaa iyadoo heshiis la doonayo in la gaaro marinka Hormuzna ay maraakiib badan ay ka gudbeen sidaan arki doono. wakaaladda wararka ee Iiraan ka soo baxday IRNA iyo wakaaladda Mehri News Agency labaduba waxay baahiyeen in xalay la maqlay qaraxyo ka dhacay bariga magaalada Bandar Abbas iyo deegaan xebeedka ku yaala agagaarka marinbiyoodka Hormuz. si kastaba wakaaladuhu waxay shaaci ka qaadeen in xaaladda Bandar Abbas ay tahay mid aad u wanaagsan oo dowladda Iiraan ay gacanta ku hayso isla markaana aysan jirin wax walaac ah iyadoo howlihii dekada la sheegay sidooda inay u sii socdeen. dhawaaqa qaraxyadan waxaa laga maqlay meelo ay ka mid yihiin deegaanada Sirig iyo Chaski balse waxaa la sheegay nidaamyada difaaca iyo hay'adaha amniga ee dowladda Iiraan si degdeg ah inay kaga jawaabeen dhacdadan. waxaana weerarkan lagu tilmaamay tallaabo cusub oo Mareykanka uu qaaday inkastoo dowladda Iiraan ay sheegtay weli inay ixtiraamayso heshiiskii xabajoojinta isla markaana ay ka go'an tahay dejinta xiisadda guud ahaan gobolka Khaliijka. Mareykanka ayaa dhankiisa ku andacoonaya weeraradan inay ahaayeen goobo gantaalada iyo doomahaba ay ka soo dhaqaaqayeen. Iiraan waxay si kulal u cambaaraysay doorka Mareykanka iyadoo lagu eedeeyay inuu fuliyay weerar sharci darro ah oo ka baxsan nidaamka caalamiga iyo heshiiskii hore loo gaaray. waxaana Mareykanka uu mar dambe sheegay in dad lagu tuhunsanaa ka ganacsiga muqaadaraadka in la bartilmaameedsaday. Tehraanna waxa ay sheegtay in arrintan ay daahay ka qaadayso wejiga dhabta ah ee wadan muddo dheer dalal kale casharo ku siin jiray xuquuqda aadanaha. qoraalkan oo lagu daabacay barta Twitterka ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan ayaa si cad waxa looga falceliyay arrintan waxaana la sheegay Mareykanka inuu ka dambeeyo weerarka laakiin xog rasmi ah lama hayo. ma waxa la bartilmaameedsaday goobo istiraatiiji ah labada dhinac wararka inoo sheegayaan waxaad moodaa inay aad ay u kala duwan yihiin laakiin xaqiiqada saacadaha soo socda ayay banaanka imaan doontaa. waan arki doonaa wax walba oo ka soo kordha waana kula wadaagaya insha Allah. dhinaca kalena talaadada maanta warbaahinta Israa'iil ayaa baahinaysa macluumaadka ku saabsan in dib loogu yeeray qaar ka mid ah ciidanka kaydka ee Israa'iil iyadoo Israa'iil isku diyaarinayso howlgallo la sheegay inay doonayso inay ka fuliso magaalooyinka dhaca koonfurta dalka Lubnaan. sida wararka ay sheegayaan ciidamada Israa'iil ee kaydka qaarkood ayaa lagu amray si degdeg ah inay ugu soo laabtaan shaqada ciidanka iyadoo kanaalka 13aad ee Israa'iil uu baahinayo in qaar ka mid ah golaha wasiirada kulamo degdeg ah ay yeesheen maalintii shalay ilaa waa berigii maanta iyadoo diiradda lagu saaray sidii dhanka Lubnaan howlgallo looga fulin lahaa. malaha tani waxa lagu soo aadinayaa iyada oo dowladda Iiraan la doonayo heshiis in lala gaaro Israa'iiliyiintana inta badan ama ra'iisul wasaare Netanyahu uu doonayo in heshiis aan la gaarin dagaalkana dib loogu laabto inkastoo lagu qancinayo heshiiska Abraham Accord ayaa dowlado badan ay ku soo biirayaan waana mid keentay madaxweyne Trump inuu dowlado qaarkood ku cadaadiyo inay ogolaadaan ku biiritaanka heshiiska Abraham Accord. dhinaca kale 24 saac la soo dhaafay in ka badan 32 markab ayaa la sheegay inay ka gudbeen marinka Hormuz sida warbaahinta Press TV oo Iiraan laga leeyahay ay baahinayso. ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa sheegay 32 markab inay gudbeen saacadii ugu dambeeyay iyaga oo damaanad ka helay sida la sheegay dowladda Iiraan gaar ahaan dhanka amniga iyo damaanad ay kaga gudbi karayaan marinka Hormuz. ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan shalay sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid ah maraakiibtaasi inay ogolaanshiyo kama dambaysa ay siiyeen kadib markii xiriir ay la soo sameeyeen saacadihii ugu horeeyay ka hor intaan xitaa markabka uusan u soo dhawaanin marinka Hormuz. arrimahan waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah. like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa beenisay wararka sheegaya in xukuumadda Doha ay Iiraan u soo bandhigtay 12 bilyan oo doolarka Mareykanka si loo damaanad qaado heshiis dhexmara Mareykanka iyo dowladda Iiraan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Majid Al-Ansari ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka maanta oo Talaada wuxuu ku yiri warkaasi waa waxba kama jiraan. saacadii ugu dambeeyay ayaa waxa soo baxay dowladda Qatar inay Iiraan ay u damaanad qaado ama ay u ballan qaaday lacagta inta leeg in la siin doono taas oo magdhow iyo waxyaabaha la midka u dhiganta iyo lacagaha ka xayran dowladda Iiraan inkastoo hadda ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar warkaasi gabi ahaan ay beeninayso.